jaamac iyo cabdi ciise faarax meher kuugu anigu waan ku meheriyay magaalada qaahira khaasatan xaafadda micaad dhawow bartaayna ku leenahay xaqsoor TV waxaan ku soo qabanay maanta warbixinooyinkii ugu dambeeyay oo laga soo diyaariyay fanaanada Safiya Tusmo oo la soo helay xilligii uu meherkeedu dhacay haddaba wadaadda caana iyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaatay siday u xalin lahaayeen arrintan baraha bulshada qabsatay ee sida gurracan dadka qaarkood ay u isticmaalayaan waxaan dadka ku cusub doonaa cid ka soo muuqaalka ee maqalkayga maqli doonta inaan yahay anigu qaadigii meheriyey ee u joogay Safiya Yunis Jaamac iyo cabdi ciise faarax وعاوه جمعة بشو أي لبطة يصدحنا كوري دونو بريو سبتيا حلوها ونجونا أبريل لابد كون يكون لبطنك وحلو حكام أنك عدينا يا Safiya Yunis Jaamac يا عبد عيسى فرح مهر كوغو أنا وان كومي هي مغالطة قاهرة خاصة عسكنا يا عد كسو مقل كيغا مقل دونتا ينقف ولالا عم بدبنا iyo dumarba ku hadaba in ciidisa la astro waajib khaasatan marka ay tahay laba qof oo isqabta waayo laba qof oo isqabta waxay isku leeyihiin xaq uu ku leeyahay midba warbixinteenan waxaan ku soo qaadanaynaa warbixinooyinka ugu dambeeyay ee laga diyaariyay fanaanada Safiya Tusmo iyo ninkeeda Cabdi Ciise Cashuun oo markan xaq isugu yeeshay haddaba culamo badan oo Soomaaliyeed iyo cuqaal ayaa u gacan qaaday oo gacan weyn ka geysatay iyo waliba dad caana oo mas'uuliyiin ayaa gacanta ula tagay siday arrintan u xalin lahaayeen baraha bulshada qabsatay ee waliba dadka qaarkood si khaldan ay u fasirteen haddaba markan waxa la cadeeyay oo ay culamadani cadeynaysaa waliba sheekh uu cadeynaya waqtigii uu isu meheriyay iyo waliba halkii uu isugu meheriyay hore ayaynu u fahansaneen inaguba in ay arrintani sax ahayd oo ay isqabaan oo ay waliba ismehersadeen Cabdi Ciise Cashuun iyo fanaanada caanka ah Safiya Tusmo ayaa iyadu gabayo kala duwan ka tirisay wixii sanadkan ka raacay baraha bulshada oo waliba aadka u gilgilay waa fanaanadii u horeysay ee sidan oo kale baraha bulshada u sii haysata muddo ilaa 4 isbuuc oo si kala duwan aad loogu qaada dhigay barta baraha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan dhagaha Soomaaliyeed markan waxa ay ku degsadeen qaarkood oo ay aad ugu farxeen in Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cashuun ay ahaayeen lamaane hore oo aad loogu faan jiray kana culumadii goobshooga ka ahayd ayaa si toos ah arrinta u dhaxgalay iyadoo oo muuqaalo kala duwan ay soo duubeen iyaga oo si sax ah u sheegay xilligii uu arooskoodu dhacay iyaga oo waliba bandhig ay isugu yimaadeen culimo fara badan oo markaa goobshoog ka ahaa ayaa si sax ah uga qayb qaatay arrinta oo loo xaliyay sidii ugu wanaagsanayd waa warbixin farxad leh iyo wararkii ugu dambeeyay oo xaqiiqo ah in ay si sax ah isugu noqdeen Cabdi Ciise Cashuun iyo fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo oo la xaliyay khilaafkii yaraa ee dhex taagnaa haddaba sidee ayay wax u dhaceen sidaas ayay u dhaceen si kastaba ha ahaatee arrimahaas oo dhan waa la soo xaliyay markan sheekadu waxay maraysaa lamaanaha qarniga oo ah Safiya Tusmo iyo Cabdi Ciise Cashuun oo la soo helay xilligii ay ismehersadeen iyo waliba inuu ahaa meherkooda $1,000 ayuu afkiisa ka cadeeyay sheekhii qaadiga ka ahaa ee goobshooga ka ahaa xilligii uu meherkaasi dhacayay isagoo uu sheegay inuu meherku ka dhacay Qaahira uu leeyahay aniguna goobshoog ayaan ahaa wararkii ugu dambeeyay oo xaqiiqo ah oo idinka imanaya barta Facebook ee arrimaha qarsoon iyo barteena YouTube ee Xaqsoor TV